ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaan Macwiisley ayaa maanta waxay guulo waaweyn ka gaareen dagaallo ay la galeen kooxda Al-Shabaab. hawdka ayaa Al-Shabaab lagu ereyanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna fariimo ay soo direen waxa laga arkayaa jabka xoogga leh ee gaaray kooxda Al-Shabaab. muuqaalkan ayaan idinkula wadaagayaa daawadayaal soo dhawaada muuqaalka sheer gareeya mahadsanidin. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 39aad ee ka tirsan guutada shanaad ee qaybta 27aad iyo ururka 10aad ee ciidamada gorgor oo isgarabsanaya isla markaana kaashanaya ciidamada xoogagga deegaanka ee Macwiisleyda loo yaqaano ayaa maanta waxa ay weerar afjar ah ku ekeeyeen kooxda Al-Shabaab meel ay isku urursanayeen oo ay doonayeen in ay weerar ka qaadaan. afjarka lagu sameeyay Al-Shabaab ayaa waxa ku geeriyooday maleeshiyaad fara badan oo halkaasi doonayay in ay ka dhibaateeyaan deegaano iyo degmooyin xor ah shacabkooduna ay si nabad ah ugu nool yihiin. waxaana soo gaaraya meedadka tobaneeyo Al-Shabaab ah oo ciidamada xoog dalku ay kor taagan yihiin kuwaasi oo ay Al-Shabaab uga carareen goobihii lagu dagaalamay. tiro intaasi ka badan oo meedad ahna waa ay qaateen intii dagaalku u socday. saraakiil hogaaminaysa dagaalkaasi oo aynu la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in guud ahaanba goobihii la isku helay oo ah deegaanka Cali Heelle hawd u dhow kaasoo hoostaga degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay gacanta ku hayaan isla markaana baacsiga kooxdii ka firxatay dagaalkii saakay ay ku raad joogaan. Al-Shabaab ayaa haatan waxay nolol adag ku marayaan hawdadka ay ku dhuumaaleysanayaan isla markaana ay ku doonayaan in ay dib ula wareegaan deegaanadii hore looga xureeyay balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo naga mudan inaan ku dhiirigelino in ay dhaxanta iyo roobabkaba u joogaan jiqdaasi si ay amnigeena u ilaaliyaan ayaa u diidaya oo meel walba isku urursadaan weerar ku ekeynaya. nolosha adag oo ay markan Al-Shabaab wajahayaan waxa ka mid ah in ay la yihiin meel sahay iyo saatoon ay u soo maraan iyagoo maanta lagu qabtay xuduudda gobolada Galgaduud iyo sidoo kale tan Mudug gawaari ay ku soo rareen shidaal iyo raashin kale isla markaana ay dusha ka soo saareen haween iyo caruur si ay markaasi uga ekeysiyaan in waxani ay yihiin safar dadweyne balse ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya sirta ay ka helayaan ciidamada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa dhagartooda fashiliyay. waxayna xilligan la kulmayaan Al-Shabaab jabkii ugu xooganaa abid. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar walba kuma milmo siyaasadaha isdiidan ee ay wajahdo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamuladuba waxayna shaqadooda si maalinle ah u gutaan iyagoo weerara goobaha ay ku sugan yihiin kooxda caadaysatay